kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wararka Soomaalida iyo dibadda qodobada daawad doontaan waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markaa yeeshay kulankooda qabiislaha ahaa waxaa looga hadlay dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha qawaariita golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulankooda caadiga ahaa oo looga hadlay dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha qawaariita ee ka socda qaybo ka mid ah gobolada dalka kulanka ayaa lagu soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo ku aadan dagaalada ka socda dalka oo lagu ciribtirayo argagixisada iyadoo markaa goluhu ay bogaadiyeen geesiyiinta iyo sidoo kale nafurnimada ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanada ee dagaalka kula jira qawaariita isla markaana cadeeyay muhiimadda ay leedahay in la joogteeyo booqashada furimaha dagaalka si loo dardargeliyo geesiyaasha loona dhiirigeliyo qaranka ee u halgamaya dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo kulanka gudoominaya ayaa golaha warbixin ka siiyay booqashadii uu ku tagay furimaha dagaalka ee gobolka Shabeellada Hoose maalintii ciidda isagoo markaa golaha faray in la joogteeyo taakuleynta iyo garab istaaga ciidamada qaranka wasaaradda batroolka iyo macdanta ayaa markaa golaha la wadaagtay halka ay marayaan howlaha shidaal baarista ee ka socda iyo caqabadaha jira iyadoo sida la sheegay wasaaradda cadeysay inay markaa ka hor dhamaadka sanadkani la soo gabagabayn doono shaqada baarista ee loo yaqaano 3D seismic survey oo markaa sida la sheegay loo cayimayo goobaha shidaalku markaa ceegaago laguna markaa gudbin doono heerka xiga ee qodobka sida la sheegay xeelasha shidaalka shirka golaha wasiirada ayaa markaa lagu ansixiyay soo jeedinta wasaaradda qorsheynta iyo dhalinyarada maalgashiga ku aadan sida la sheegay agaasima ku-xigeenka hay'adda waa sida la sheegay statistiska qaranka Mudane Cabdiraxmaan Cumar Daahir oo loo cusboonaysiiyay muddo sida la sheegay xileedka haddaba markaan fiirinana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay guddi qaran oo markaa taakuleynaya dagaalka lagula jiro kooxaha qawaariita sida warbixinada markaan ku helayno ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay guddi qaran oo taakuleynaya dagaalka lagula jiro kooxaha qawaariita lagula jiro al-shabaab iyo daacish sida warbixinada markaan ku helayno xubnaha guddiga taakuleynta dagaalka ayaa markaa waxaa hogaaminaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali haddii markaa aan fiirinana xubin markaa ka tirsan al-shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya isagoo markaa warbixino dhowr markaa dhiibay Ducaale Axmed Gabayre ayaa sheegay in markii uu ku biiray qawaariita suxun ula dhaqmeen waalidkiisa isla markaana ay ka dhigeen mid qiimo aan u lahayn sida uu sheegay Ducaale ayaa markaa u waramayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in waalidka sida uu sheegay waalidkiisa markaa ka eriyeen guriga aadna markaa loo deeriyay iyaga sida markaa uu sheegay isagoo markaa eegaya dhibaatada ay markaa u geysteen qawaariita Ducaale uu ka hadlay saameynta kooxda dhalinyarada ayaa markaa xusay inay ku soo bandhigaan fursado aan run ahayn ee ku saabsan awoodda lacag iyo sidoo kale magac sidoo kale wuxuu sheegay in hoggaamiyaasha furimaha dagaalka marka ay tagin halka mas'uuliyiinta dawladda marka ay ku dhiiradaan furimaha dagaalka sida marka uu sheegay haddii lagu run sheegayana ay tahay in marka la tago Ducaale Axmed oo markaa dhiibayay warbixin ayaa markaas sheegay in dhalinyarada kale ee ku dhici karaan qatarahaasi isagoo haatan markaa ku jira sida uu sheegay nolol wanaagsan wuxuu ugu baaqay inay iskaga soo baxaan oo sidoo kale bulshada sida la sheegay u muujiyay in laga hortagi karo fikirka xagjirka wuxuuna markaa ugu baaqay kuwa haatan ka tirsan kooxda inay dib markaa ugu soo laabtaan bulshada isagoo markaa sida sheegay oo warbixinada uu ku dhiibay helay taageero iyo fursado fiican oo kooxda markaa uu ka helin Ducaale Axmed Gabayre oo muddo 12 sano ka barbar dagaalamaya kooxda qawaariita ee ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa markaa ugu dambeyn sida la sheegay ku qancay waanada hooyadiis taas oo markaa sida uu sheegay
ugu dheertahay gulufka xoogan ee argagixisada ka timid ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka taasoo ku qasabtay inuu isu soo dhiibo sida markaa uu sheegay. haddii aan fiirino Soomaaliya ayaa danjiro cusub u magacaaday dalka Algeria sida warbixinada markaan ku helayno. Soomaaliya ayaa markaa haatan safiiro cusub u magacaabaysa dalalka kala duwan ee caalamka si loo xoojiyo xiriirka u dhaxeeya wadamada caalamka iyo Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda sida la sheegay ee dalka Algeria mudane Ahmed Isaaf ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u joogi doona Algeria mudane Yusuf Ahmed Hassan Jeego. danjiraha Soomaaliya ee dalka Algeria iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa ka wada sheekaystay xaaladda guud ee dalka xoojinta xiriirka labada dowladood sida warbixinada aan ku helayno. haddii aan fiirinana canshuuraha dalka Mareykanka uu ku soo rogay wadamada caalamka ayaa la sheegay in saameyn markaa ay ku yeelan doonto caalamka. saameynta cashuurta ay ku yeelan doonto dhaqaalaha adduunka ayaa noqon doonta mid aad u weyn. waxaa sida la sheegay lagu cabiri karaa arrintaani jaantuska ku qoran shaxda dakhliga canshuuraha Mareykanka ee markaa u boodaya heerarka aan markaa la arkin muddo qarni ah oo markaa ka baxsan kuwii la arki jiray intii lagu jiray muddadii loo yaqaanay ilaalinta sare ee canshuurta ee 1930-yadii. waxay sidoo kale markaa sababeen hoos u dhac markaa ku yimid habeen qurax ayaa la yidhi suuqyada saamiyada gaar ahaan kuwa Aasiya. laakiin siyaasadda isbeddelka waxay markaa noqon doontaa kuwa si dhab ah u yimaada oo saameeya sida la sheegay wadooyinka caalamiga ah ee ganacsiga. waxayna timid kadib markii dalkaasi loo magacaabay Donald Trump oo dib ugu soo laabtay dalkaasi. sida caadiga ah tani waa canshuur caalami ah oo gaarsiisan 10% oo dul saaran dhammaan alaabada loo dhoofiyo Mareykanka laga dhoofiyo taasoo markaa ka dhaqan galaysa saacadaha soo aadan. intaa waxaa dheer daraasiin sida la sheegay dambiilayaasha ugu xanuunka ah ee lagu soo rogi doono canshuurta ciqaaba maadaama ay markaa soo dhoofiyaan badeecooyin ka badan kuwa loo dhoofiyo dalalkooda. canshuuraha lagu soo rogayo wadamadahaas ayaa runtii waa kuwa cajiib ah waxayna markaa jibin doonaan nidaamyada ganacsiga oo kumanaan sida la sheegay shirkadood warshado iyo xitaa inay suurtagal tahay in markaa sida la sheegay quruumo dhan ee markaa saameyn ku yeelato. guud ahaan barnaamijka wararka Soomaalida iyo dibadda waa naga intaa ku kulmi doono mid lamidana nabadgelyo.